dhibta taalla waxay tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiin badani ku dayashadiisii way ka tageen laba mid uun inay jaahiliinba ka yihiin diintaba inuu jaahil ka yihi ama dee dadkaa shakigu soo gaadhay inay yihiin taa waxaa ka sii daran gaalka wixii manfac lahaa lagagama dayane wixii aan manfac lahayn baa lagaga dayda inta ugu badan maxaan uga dan leeyahay gaaladu waxyaaba la ogolyahay in la kala qaataa jiro bini aadamka oo dhami wadaago oo muslimiintii horeba ay ka qaateen persian iyo romans iyo cid kasta ay ka qaateen iyo waxyaaba aan la ogolayn in la kala qaato waxaa la ogolyahay in la kala qaato waxaa ka mid ah waxyaabaha kan manaaficdan dunawiga yacni maalan technology-gan laakiin waxa weeyaan waxa manfaca lihi waqti iyo juhdi iyo sabir iyo aqoon bay u baahan yihiin laakiin dadku inta badan muxuu kaga daydaa waxaan manfac lahayn timahoo la xiirxiira iyo dhafaradoo la caddaysta iyo maryahoo la jeexjeexa iyo waxaan aakhiriya adduuntoona wax tarin dhallinteennu ama dadkeennu waxa aynu reer galbeed kaga dayanaa waa maxay hadday kaga dayan lahayeen sida dayuuradaha loo sameeyo iyo sida madaafiicda loo rakabtay iyo sida rag laysaga celiyo dee waxaynu odhan lahay waxba soo kordhisay ku dayasho macna samaynaysana way noqon lahayd laakiin haddii waxa lagaga dayanayaa uu noqdo maryaha la xidhanayaa noocay u ekaadeen imka masaajidda muslimiintaad soo gelaysaa qofka kaa horeeyo qaawan baad arkaysaa sujuudsan waayo maraduu sito ayaa maro faranji loogu talagalayoo dabada hoosteeda ka xidhanta nin salaad tukanayo cawradiisii muuqataad arkaysaa salaadna wuu ku jiraa mid muslim oo dhafarada xiirtay qasac sameeyey timaa badhna muldhiyey badhna soo daayey idan waxa aynu kaga dayannoo dhami akaruhu waa wixii layna yidhi ha kaga dayanina wixii uun suurtoobi lahaa in laga soo qaatana maynan ka soo qaadanin ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu markaa inoogu tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswaة xasana maxaynu ugu dayan weynay waxaynu ugu dayan weynay cid gaara baa la yidhi baa nebi maxamed uswa xasana ugu sugantay waa ayo liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira waa kuwa ku dayan kara nebi maxamed kow liman kaana yarju allah kuwa ilaahay rajaynaya ilaahay rumaysan liqaagiisa rajaynaya ilaahay markuu la kulmo wuxuu odhan doono ka fekeraya ilaahay iyo weynidiisa iyo cadamadiisa kuwa garanayo rabbi rajaynaya rabbi iyo xikmaddiisa garanaya og ilaahay dunida tani inay isaga gacantiisa ku jirto sifada labaadee la siiyeyna waa maxay waa aakhiro kuwa yana rajaynaya nebi maxamed dariiqiisu dadku u fudud iyo raacaya waa dad ilaahay rumeeyey aakhirana agtooda ku weynti dhibta taalla waxay tahay